saddexdii dibi iyo libaaxii waa sheekadeenna maanta waa mid aad u xiiso badan, xikmad gaarana xambaarsan, nolosha bini'aadamkana tusaalooyin nool ku leh. Hadda ka hor ayaa waxaa jiray 3 dibi oo walaalo ah, kuwaasoo ku noolaa meel kayn ah oo cidlo ah. 3da dibi waxay kala ahaayeen mid cad, mid madow iyo mid gaduudan. 3doodu waxay ahaayeen 3 walaalo ah oo cadowga iska kaashada. dhanka kale kaynta waxaa kula noolaa libaax. maalin maalmaha ka mid ah, libaaxii ayaa waxa uu ogaaday meesha ay ku nool yihiin 3da dibi. kadibna weerar ayuu ku soo qaaday oo dhinacoodii ayuu soo aaday. markuu u yimid ayay si wada jira libaaxii u cayrsadeen, aaggoodiina uga saareen ayagoo isticmaalaya geesahoodii dheerdheeraa. libaaxii oo la soo cayrsaday ayaa meel iska fadhiistay, kadibna waa uu fikiray. waxaana u soo baxday tab iyo xeelad iyo caqli uu dibida ku wada cuni karo. waxa uuna ogaaday inuu dibida oo wada jirta uusan ka adkaan karin, oo mid uu u ugaarsado. khidadii iyo caqligii uu ku kala geyn lahaana maskaxdiisa ayuu ka tuujiyey. maalin maalmaha ka mid a ayuu waxa u yimid 3dii dibi oo kaynta jooga. kadibna waxa uu ku yidhi, dibiyey waa ini salaamay. waxaan rabaa inaan saaxiibkii noqdo. waxaan rabaa cadowga inaan iska kaashanno. waxaan rabaa inaan inku soo biiro, oo sidaas doog iyo diraacba aan wada joogno, oo aan si wada jirana iskaga dhicinno cadow kasta oo na soo weerara. dibidii ayaa waxay ku dhaheen, libaax, adigu hilibka ayaad cuntaa, annakuna naq ayaan cunnaa, kaa yeeli mayna taas. waxaadna doonaysaa inaadna cunto. libaaxii ayaa hadalka qaatay, waxuuna ku yidhi, waxaan inka ballanqaadayaa inaanan ini cunin, balse aan cadowga inka difaaco oo garabkiinna iyo gaashaankiinnaba aan noqdo. dibidii markay caqligooda rogrogeen ayay waxay ku tashteen inay la saaxiibaan libaaxa, maadaama cadaawadda loo qaada libaax aysan wax sahlan ahayn. intaas wixii ka dambeeyey, libaaxii iyo dibidii waxay kayntii ugu noolaayeen si nabad ah, isagoo libaaxu aaminsan mahmaadii caanka ahayd ninkaa dili ninkaa dagi waa laysku kala daadshaa iyuusan kaa didine. sidaas waxay ahaataba, maalin ayaa waxa uu u yimid dibi madoobe iyo dibi gaduud. waxa uuna ku yidhi, war saaxiibayaale, waa ogtihiin meeshan ku noolnahay inay tahay meel cidlo ah, bahallo iyo halaqyo badanna ay leedahay. dibiga cadna waa nagula soo raacaya oo caddaankiisa meel kore ayaa laga soo bidhaansanayaa. maxaynu samaynaa asxaabay si dibigan cadi uusan nolosheenna u galaafan? labadii dibi ayaa waxayna ku jawaabeen, libaaxow, adigu maxaad ku talinaysaa? anigu waxaan ku talin lahaa dibigaan cad aan iska cayrinno. kadibna sidii ayaa la yeelay, oo dibiga caddaa hadal wada jira ayaa lagu cayriyey. kadibna libaaxii ayaa dibiga caddaa meel cidlaa intuu ka helay ayuu halkaasi ku cunay. hilibkiisiina cadcad u goostay. muddo isbuucana hilibkiisii waa uu ku qaday, oo halkaas ayuu ku cuni jiray. kadibna waxa uu u yimid dibigii madoobaa. waxa uuna ku yidhi, dibi madoobow, waad og tahay dibigan gaduudan maalintiina kor ayaa looga jeedi karaa, habeenkiina waa u dhalaalayaa. waxaa qurux badnaan lahayd inaan dibigan iska cayrinno intuusan cadow noo soo jeedin. dibi madoobe ayaa arrintii ku raacay. waxa uuna yidhi, aan iska cayrinno si aan si nabadgelyo leh labadeenna ugu noolaanno, maadaama saaxiibo is-aaminay aanu nahay. kadibna libaaxii iyo dibigii madoobaa waxay iska cayriyeen dibigii gaduudnaa, oo waxay ku dareeriyeen kaynta. maalin kadib, dibigii gaduudnaa ayaa waxaa cidlo ka helay libaaxii. halkaas ayuu asagiina ku jillaabtay oo ku cunay. markuu dhowr maalmood hilibkiisii cunayey oo uu laystay ayaa waxa uu u tegey dibi madoobe. deedna libaaxii ayaa waxa uu soo weeraray dibigii madoobaa. dhulka ayuu dhigay, isagoo naf yari ku sii qariircid leedahay ayuu wuxuu ku hadaaqay, maanta layma cunine waxaa la i cunay maalintii dibicadde la cunay oo aan cidlada ku daynay. sheekadan xikmaddan ka qaadanayna waxa waaye, midow haddaanu nahay oo u wada jirno, awood ayaynu leennahay. waa halkii ingiriisku ka dhihi jiray united we stand. haddaan mid nahay, manii waan jirnaayo waan joognaa, ciddana soo handadi kartana inama hawlakaatay ma jirto. divided haddaan kala qaybsannahana we fall, waan burburaynaa. sidii dibiyaashii aad soo aragteenba, midba meel loogu qashay. marka soomaaliyey, midnimada iyo wadajirka aan ilaalinno. gacmana wadajir ayay wax ku goyn karaan. aad baa u mahadsantihiin walaalayaal. janaalka noo like garaya, subscribe-ta iyo sheertuna waa noo muhiim.